soomaalida waxay ku amaadan nin baceesaantiisa ceel geysaa soo sidaa maaha nin walba baceesaantiisa yaa ceelka geysaa hadday siiga soo dhaqaaqdo dabeel soo dhaqaaqdana ninka kale isha uma qabto nin walba indhihiisa unbuu sacabaha saaran oo qashinka iyo siigada duulaysa uu ka reeban xaqiiqatan hawshan hadda maanta aan isugu nimid waa hawl waajib ah oo annagoo dhan noo taallo ma aha taageero axmed ma aha taageero shakhsiyeed ma aha taageero qofeed waa naftaada oo taageerayso ood ku taageerayso inaad waxa kaa maqan aad gaadho jubbaland haddii la yidhaahdo gobolladii ugu muhiimsanaa yaa maqan gobolladaa ugu muhiimsan in la laybireed gareeyo la xoreeyo la gaaro shacabka ay u tagaan ka soo tagaan dantooda ka fushadaan ku noolaadaan dhinkeen rabin war intaasoo diyaar uma nihin waxaan qabaa maanta 9kii dabe cawliyahan inuu meesha ku dhan yahay cid maqan oo cawliyahana inaynan maanta jirin shakhsi hebel la yidhaahdo waa gaarkii cawliyahan xalay ilaa iyo habeen hore waan wada hadlaynay waxaan qaadannay in naf iyo maal aan u hurro dawladdeenna iyo deegaanadeennaba in aan la garab istaagno oo dawladda annagaa iskale ilaahay baa na siiyey mahad iyo shukri ilaahay baa iskale mahadda labaadna waxaa iskale madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe oo lagu hogaaminay howlgalka jubbaland ka socdo oo lagu xoreynay deegaamaha aan isin u leenahay taageero buuxdo baan siinaynaa midda labaad waxaad ogaataan dawlad haddaad maqashiin waa dhul dawlad dad ma aha dawlad haddaad maqashiin waa dhul maxaa soo dawlad aanan dhul haysanin dad ma haysan karto markaa madaxweynaha aad baan ugu mahad celinayaa dadaal iyo juhdi dheeraad ayuu samaynhayaa markaa waxaan leenahay madaxweynaha iyo ciidamada howlgalka samaynayaan yaanan lugaha qaban waa inaan taageero buuxdo siino waa inaan garab istaagnaa waa dhulkan naga maqan inaan soo ceshana yacni waxaan u soo kacnay annaga maanta muxubbada aan u qabno jubbaland madaxweynehayna axmed maxamed islaam inaan aragno diyaar baan u ahayn ilaahayna wuuna tuse waxaan ka rajaynaynaa meesha uu u socday inuu ilaahay ku guuleeyo annagana aan ku taageersannahay joog dheera jarnaalkii magaalo 80 magaalo inankii saxiixiyo sariirta wareegsan inankii ku seexiyo daleela libaala jiirkaada cadow ma jira jannal fardowsi allah jidka nabi ku gee amiin arrintan aad baan loo taageerahay aad baan kugu garab taaganahay aad baan xiiso ugu qabnaa waana ku mahadsantahay inaad noo bilowdo waana kula garab taaganahay jubbada dhexe waa la qaban ilaahay idinkiisa waa la qabanaya anigu baan ka geliyayaa 3 iyo b laga geli tuutaha madaxweynuhu qabaan qaadan doona haddii alla yidhaahdo wasiirkeennaga iyo raggana waa isdaba gelaynaa af mehe baraatikaa loo degaya quusar dheerana waa wataa 5 qasnadood ku jirto cawiyaan siyaasiyiintiisii cuqaashiisii waxay ka yimaadeen meesha la yidhaahdo Kenya Soomaaliya iyo meel walba ka yimaadeen Nairobi waxa la isugu yimid Kismaayo si sharaf loo soo dhaweeyay qodobo laga wada hadlay oo muhiim ah jiray qodobadii ugu muhiimsanaa waa la fuliyay laakiin waxaanu garanaynaa shakhsiyaad ka mid ah oo marka hore eedaynta ay soo jeedinayaan ay ahayd gobolkii lama qaban hayay maamulkii gobolka maxaa loo magacaabi lahayaa inaysan dhabka ahayn waan ogeyn markii intii lagu ballamay la sameeyay ayay faryarid bixi ka baxeen oo haddana bilaabeen eedayn kale iyo dacayado kale ujeedkoodu marka maysan ahayn caawiyaan dhulkii hala qabto ujeedkiidu wuxuu ahaa dana gaara caawiyaanu ma ogolaanaysaa nin dan gaara wata inuu waxaan qabaa maamulkeenna madaxweyneheenna inaan garab istaagno ku garab istaagno howlgalka iyo in la xoreeyo deegaanada naga maqan mudana madaxweyne ku soo dhawow halkaan hadda waxaan u nimid socodkayga laba xaal u ahaa waxaa koo ahayd inaan samayno abaabul howlgal oo aan doonaynay inaanu ku bilowno
furimo cusub oo dagaal oo lagu xoreynayo caasimaddii iyo gobolka jubbada dhexe inta ka maqan iyo xagar oo jubbada hoose ka mida ilaa iyo jamaame iyo degmada badhaadho degmo ahaan u maqan laakiin tuulooyinkeeda inta badan ay joogaan howlgalkaas waxaan inagu qaadanay hal waddo oo keliya dagaal laga qaadayo inayna keeni karaynin in guusha la doonayo si dhaqsaha loo gaaro taas waxay sababtay inaan furno oo aan u soo doorannay dhobleyda maanta aan joogno waa tii jubbaland laga qabtay bilowga halganka ahayd in dariiqa labaadee haddana laga furayo noqonayo afmadow in laga baxo ilaa la tago gobolka intiisii kale oo jilib iyo bu-aale iyo salagle iyo saako intaba halkaa laga aadaya haddii laga yidhaah howlgalkaasi waa midka aan odayaashana ugu yeedhno dadkan aan kula kulmaynay oo aan u baahan nahay inaan wiilkii iyo warankii iyo wixii diyaargarow ahaa iyo isku tashigii intaba inaan samayno waxayna tahay aan u diyaargarown aad baan idinkaga mahad celinaya si aad ugu diyaarsan tihiin isku duubnidiina iyo muwaafaqadiina qof wax sheega lama waayo colayskana saaran maanta cid maanta noogu helinaysaa ma jirto shabaab maanta cid walba iska waa la fiirinayaa dagaalkooda sidan u socdaa kanuu yahay inaan isku tashanno ma dhib baynu u leedahay ma wiil baan maanta waayaynaa waxaan qabanaynaa ha noqoto halgankaas wuxuu yihi ninkii xoolo dooni xamarahaada ninkii xelo dooni meel xamaro la yidhahdo mala waxba loo doonay waad ninkii xoolo dooniyo bu-aalaad ninkii xelo dooniyo bu-aalaad ninkii xil dooniyo bu-aalaad meeshaasa xilku yaala marka aad baan khayr idinku rajeynaya insha allahu waxaan rajeynaya inaan hadallo badan oo dambana yeelan doono waan odayaasha ka yimid ilaa iyo gaarisa labeeya soonahan kulli waan idiin mahad celinaya gabdhahana weliba si gaara yaan ugu mahad celinayaa gabdhuhu ragga way ka fiican yihin wayna ka caadifay badan yihin marka gabdhaha iyaga si gaaraan aad iyo aad ugu mahad celinaya waanan jeclaan lahaa inaan iyaga weliba si gaara ula hadli doono haddii ilaha yidhaahdo aad baan idinku mahad celinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu